Hogan 24 Media ka dhigo wehelkaaga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Meel kastood ku sugantihiin ku soo dhawaada barnaamijka tiknoolajiyadda ee ka baxay YouTube channelkeena Hogan 24 Media. waxaana barnaamijkan idin soo gudbin doonaa anigoo Cabdulle Mucallim Alto. barnaamijkeena maanta waxaan idinkugu soo gudbinaynaa adeegga cusub ee tiknoolajiyadda 5G oo la filayo in dhawaan si guud looga daahfuro caalamka walow ay hadda wadamada qaar isticmaalaan. si aan u bilowno muuqaalkeenu haddii aad u aragtay in muuqaalada noocan oo kale ah aad wax ka faa'iideyso like saar si aan u ogaano tirada danaynaysa. haddii aad nagu cusub tahayna subscribe saar gabaleelkana furo si aad u hesho barnaamijyada cusub ee aan soo gelino channelkan. mahadsanid. 5G technology macnaheedu waa tiknoolajiyadda jiilka shanaad, waxaana waagii hore la isticmaali jiray 2G iyo 3G kuwa oo dhanka isticmaalka internetka aad u cuslaa. balse horumar dhanka tiknoolajiyadda kadib waxaa la helay 4G oo ah tiknoolajiyadda internetka aan maanta isticmaalno. xawaaraha 4G marka lala barbardhigo 2G iyo 3G waa uu ka xawaaro badan yahay. si kastoo ay ahaatee adeegga 4G ma gaarsiisana heerkii la doonayay ee ah in sekindkii ama millisekindkii lagu gudbiyo macluumaad aad u badan. walow maanta qofkii raba inuu internetka ka soo dejiyo muuqaal HD ah si kastoo xawaaraha halka uu joogo ay ugu xiran tahay ugu badnaan halkii GB waxa uu ugu soo degayaa muddo u dhaxayso 8 daqiiqo ilaa 10 daqiiqo, walow mararka qaar ay dhacdo in intaas in ka yar uu ku soo dego muuqaalkaas. waana xilli aad u dheer marka loo eego tiknoolajiyadda cusub ee 5G. 5G-gu waa tiknoolajiyad xawaaro sare leh. millisekund gudaheeda waxaa la isugu gudbi karaa wax waliba information ah, waana sababta loo qorsheynayo in tiknoolajiyaddan cusub marka ay soo ifbaxdo in la wado gawaariyada iyada oo aan wax darawal ah aysan saarnayn. waxaa sidoo kale isbedeli doona taraafikada waddooyinka oo noqon doona kuwa ku shaqeeya system automatic ah. waxaa sidoo kale fududaan doona in qofkii dambi geesta la soo qabto, iyadoo sidoo kale shirkadaha iyo wax soo saarkooda ay la wareegi doonaan robotyo, waxaana yaraan doona khasaaraha iyo shilalka nafeed ee bini'aadamka. tanina sababteedu waa inay fududaynayso tiknoolajiyadda casriga ah ee 5G-ga. tiknoolajiyadda 4G ee maanta sababta ugu weyni aanan loogu samayn karin horumarkan waa inuu soo daaho, balse mar haddii ay mashiinada iyo bini'aadanka wada yeeshaan xiriir millisekund ah waxa ay u dhigataa in sida inay isla joogaan oo kale. waxaa dunida ka dhici doona isbeddel weyn, waxaana fududaan doonta in dhakhaatiirta qalliimada ay u sameeyaan si fudud, dadkuna waxay awood u yeelan doonaan inay hawada sare isugu imaadaan si khayaali ah. waxaa sidoo kale geemamka loo ciyaari doonaa qaabkan. marka uu qofka ookiyaalaha xirto waxa uu la jaan qaadi doonaa dunida qarsoon ee khayaaliga ah, waxa uuna qofka moodaa inuu ku dhex jiro dunida khayaaliga ah. sidoo kale tiknoolajiyaddan 5G faa'iidooyinkeeda kuma eka xawaaraha internetka oo kordha, balse waxaa jira faa'iidooyin kale oo xagga nolosha ah. waxa ay bilaabeen waddamo uu ka mid yahay Shiinaha inay adeegsadaan adeeggan 5G-ga, balse waddanka Shiinaha waxa uu sidoo kale bilaabay inuu dhiso waddooyin u qaas ah gawaarida aysan wadin bini'aadamka, waxaana loogu talagalay in lagu tijaabiyo tiknoolajiyaddan 5G-ga. dowladaha sida tooska u bilaabay isticmaalka 5G-ga waxaa tusaale u ah waddanka Koonfur Kuuriya. si kastoo tiknoolajiyaddan ay ugu muuqato mid nolosha bini'aadamka faa'iido u leh, haddana waxaa soo ifbaxaya dhibaatada caafimaad ee ay leedahay tiknoolajiyaddan. waxa ay khubarada caafimaadka ay ka walaacsan yihiin dhibaatooyinka caafimaadka ee tiknoolajiyaddan ku yeelan karta nolosha bini'aadamka. waxay sidoo kale qabaan in la ogaado inta aanan si guud looga isticmaalin adduunka in la ogaado dhibaatada ay leedahay, waxaana la ogsoon yahay in dhibaatada ay u leedahay carruurta yaryarka ah iyo hooyooyinka uurka leh inay halis weyn u tahay tiknoolajiyadda. tiknoolajiyadda 5G-ga maadaama ay xoog badan tahay xawaaraheeduna aad u dheereeyo, waxaa sidoo kale xoog badan raadiyeeshinka ay bixinayso, waxaana sidoo kale 10 mitirba lagu dhejin doonaa stationiska tiknoolajiyadda 5G-ga. taasi waxa ay nolosha bini'aadamka u tahay
mid aad halis u ah. dowladaha waaweyn sida Japan, Koonfurta Kuuriya iyo Shiinaha dadaalkoodu 5G-ga waa mid xawli ku socda marka loo eego waddanka Mareykanka. sidoo kale waxaa qaybo badan oo wadamada Yurub ka mid ah ka socda olole looga soo horjeedo tiknoolajiyaddan 5G-ga. sida dhabta ah ma jirto baaritaano xoog leh oo la xiriira dhibaatada ay leedahay tiknoolajiyaddan 5G-ga. sidaas darteed dowladda Belgiumku waxa ay ka baxday heshiiskii tiknoolajiyaddan 5G-ga ay la gashay. waxa uuna yidhi wasiirka deegaanka dowladda Belgium, bas isteeshinada 5G raadiyeeshinka ay bixinayaan inta uu la egyahay lama qiyaasi karo. sidaas darteed caqligal ma ahan in xawaaraha internetka dartiis nolosha dadka aan khatar gelinno. walow laga cabsi qabo dhanka dhibaatooyinka tiknoolajiyaddan inay gaarto in la isku dilo hab online ah. maadaama isticmaalka adduunku isku beddelaya in la adeegsado tiknoolajiyadda 5G-ga, sidaas oo kale dhammaan isbitaallada caafimaadka, iskuullada, guryaha iyo wixii la midka waxaa loo adeegsan doonaa tiknoolajiyadda 5G. midaasina waxay sababi kartaa dhibaatooyin nafeed iyo mid hantiyadeedba. maadaama ay sahlanaanayso in milisekin gudahooda lagu heli karo xogta la rabo, kadibna waxaa suurageli karto in la jabsado kumbiyuutarada isbitaallada iyo wixii la midka ah, kadibna hab online ah lagu dhibaateeyo qofka bini'aadamka naftiisa iyo maalkiisaba. inkastoo xilligan la joogo ay suuragal tahay in qof lagu dhibaateeyo naftiisa iyo maalkiisaba, balse waxay qaadanaysaa waqti maadaama xilligan la isticmaalayo tiknoolajiyadda 4G oo xawaaraheedu aanan gaarsiisnayn meeshii la rabay. haddaba haddii aad ka heshay muuqaalkan, la sii wadaag asxaabtaada adigoo sheer garanaya muuqaalkan. hana hilmaamin inaad sabskaraib saartid, gambaleelkana furatid si aad u heshid barnaamijyada cusub aan soo gelinno. mahadsanid.